laba nin oo ka tirsanaa burcad South African ah oo Toure ku dilay laba wiil oo Soomaali ah 6dii bishan aynu ku guda jirno magaalada Mokotso ee gobolka Limpopo ayaa waxaa la soo taagay maxkamadda gobolkaasi kadib markii ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliiska deegaankaasi. labada burcad ah ee maxkamadda la soo taagay oo ayagu ku eedeysnaa in ay dil bareer ah u geysteen Cabdisalaan iyo Maxamed oo ahaa laba wiil oo ka wada shaqaynayay deegaanka Mokotso goob ganacsi oo ku taala isla markaana Toure ay qudha uga jireen dhacna u geysteen goobta ganacsiga. waxa ay qirteen labada burcad ah falkaasi inay geysteen isla markaana waxay maxkamadda ka codsadeen in la siiyo fursad ay ku raadsadaan abukaate u dooda si ay uga badbaadaan ciqaab adag oo ay kala kulmaan maxkamaddaasi iyadoo qaadigana uu xukunkaasi dib u dhigay. qaar ka mid ah madaxda jaaliyadda oo goobta dacwadda lagu qaadayay jooga ayaa waxay la hadleen warbaahinta iyagoo ka warbixiyay dareenkooda ku aadan sida ay u socoto maxkamadeynta raggaasi. saaka waxaa halkan u nimid si aan wax kaga ogaano wiilashii labada wiil ee waalaha ahaa ee lagu dilay Bokhom oo maanta maxkamadooda ahayd labadii gacan ku dhigle. waxaan rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi kariim oo halkaan aan u nimid oo aan pressure-ka ama culayska weyn aan saarnay inaan wax beel ah la siinin. marka ilaahay idinkiis waxaan ka rajaynaynaa in aan wax beel la siinin. hadda macnaha magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. waxaynu halkan u nimid si aynu follow up ugu sameeyno case-kii arintii labadii walaalaha ee lagu dilay. sidoo kale goobta dacwadda lagu qaadaya afkeeda hore ee maxkamadda ayaa waxaa buux dhaafiyay dadweyne aad u fara badan oo isugu jira Soomaali iyo South African kuwa oo ka soo horjeeday in dambiil lagu sii daayo ragga burcad ah ee dilka u geystay waxayna wateen boorar ay ku qornaayeen erayo ay ku muujinayeen codsigooda. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, TV-ga qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.